السلام عليكم أصحابتي دقالق دمانتينا كسو دوادا كوكيمي سعاد دمانتيغو عصبتينا كسو دوادا فاميلك سبسكرايب سار سبسكرايب كدين عيسى قنبليل يريسا يوكي على قنبليل كاس فرطة مرو الفيديوان سو قليسي دقسيني سو قارا سو أصحابتا maanta waxaan sameynayaa aad u macaan badan oo bariis aad ku cuni kartid bariiska bilaa markaa karsatid aad ku cuni kartid oo basbaas dhadhan macaan badan leh marka insha Allah waxyaabahan ka sameynaan waxyaabo aad u fudud waa dhammaantiin adduunka meel walba aad joogtiin aad ka heli kartiin marka insha Allah sidaan u sameynaa idin tusnaya asxaabta maanta igu cusub ku soo dhawaada channelkii Cooking with Sucaad channel labaad ayaan leeyahay channelkayga labaad hadaa wali arkin ku soo dhawaa magaciisa waa kay Sucaad recipes ayaa la channelka labaad soo linkiisana waxaan soo gelinayaa videogan hadaan soo gelinaa comment ka dhexdeeda linkiga pin ayaan saarayaa linkigaas markaa taabto waxay ku geenaa channelkayga labaad sidaas ay u soo booq kartaa subscribe ayaa saari kartaa soo asxaabta daawili arkin channelkayga labaad markaa ku soo dhawaa subscribe sa waxyaabo badan ayaan soo geliyaa oo dhamaantiin ka faa'iido doontiin marka subscribe kana free waay soo subscribe saar soo dhaxaydin tusnayaa dhammaan sidaan u sameeynahay sidaas la socda dhamaantiin daawasho wacan asxaabta marka hore waxaan sameynayaa raqaygaas ayaan baaquliga ku shubayaa raqaygana marka waan soo dhaqay nadiif waay kadibna waxaan sameynayaa biyo ayaan ku qasayaa raqayga biyaha aan ku qasayo biyo kuleel waay marka biyahaas kuleel ayaan ku qasayaa raqayga marka biyo kuleel ku qastay si fiican ayuu u jilcanayaa kadibna waxay ku noqonaa dhiiqo oo kale marka biyaha kuleel muhiim waa inaan ku qastid raqayga daarabtid raqayga dhaqsi inuu ku jilcado oo macaan badan ku noqdo marka wax yar oo biyo kuleel ku qas kadib had raqaygan markaan qasay hadana waxaan sameynayaa baaquligan waxa igu jira timir waay 6 xabo timir ah 6daas xabo timirna waxaan sameynayaa biyo kuleel ayaan ku shubayaa kadibna waan sii qasayaa meel ayaan sii dhigaa ilaa timirka si fiican u jilcado kadibna insha Allah waa idin tusi doonaa sida kale aan u sameynaa marka labada shay muhiim oo mid ka hor aad sameysanaysid raqayga iyo timirka waay soo timirkaaseti biyaha kuleel markaan ku shubay sidaas ayaan isku qasay gees ayaan dhigayaa raqaygan waa aragteen waan qasay gees ayaan dhigay marka saxankan waxa igu jira yaanyo waay 6 xabo yaanyo weyn waay waan soo jarjarayaa qiyaas ayaan ka dhigayaa jaritaankiisi kadibna yaanyada waa kay sidaas ayaan u soo jarjaray soo makiinada ayaan soo qaaday kadibna yaanyadaas aan soo jarjaray ayaan ku shubayaa marka yaanyada asxaabta qiyaasta adinka inta rabtiin ayaa sameysan kartiin hadaa rabtid 3 xabo ayaa sameysan kartaa hadaa rabtid 6 xabo marka inta rabtid hadaa 6 xabo markaan sameeyo wax badan ayuu noqonayaa marka talaajada iska gashi kartaa mar walba marka rabtid oo bariis aad karsatid ama waxyaabo aad rabtid ku cuntid ayaa soo baxsanaysaa wax yar ayaa ku leesanaysaa soo yaanyada markaan ku shubay kadibna baaquligan waxa igu jira bocorka midka jaalaha ah waay marka haaf oo bocorkaas midka jaalaha si yar soo jarjaray kaas ayaan ku dhex shubay kadibna waxaan ku darsanayaa basal ayaan ku darayaa haaf basal aan soo jarjar waa basasha aan ku darayo marka basasha aan ku daro waxaan ku darsanayaa barbarooni ayaan ku darayaa haaf barbarooni aan soo jarjar waay marka barbaroonigaas ayaan ku darsanayaa marka barbarooniga aan ku daro kadibna 3 xabo basbaas gaduud ayaan ku dar waa aragteen andeen hadda ayaan ku darsanayaa tuun ayaan ku darayaa marka tuunkana 4 xabo ayaan ku darsanayaa hadaa rabtid 3 xabo 2 xabo ayaa ku darsan kartaa qiyaaskii adiga sameysanaysid ayaa ku xiran yahay soo marka biyo ayaan ku shubayaa aan ku shiido waxyaabahaas dhan because makiinada sidaan ma ku shiidmaayo marka biyo inaan ku dartid laazim biyo badan ka dhigan biyo qiyaas ee ku shub kadib had marka diyaar waan soo shiidayaa markaan soo shiido kadibna insha Allah waa idin tusi doonaa sida kale aan u sameeynahay marka sidaas la socda dhamaantiina soo asxaabteeda qaaliga marka diyaayada waan soo shiiday daqiiq waay marka sidaas ayaa loo baahan yahay si fiican inaa u shiidid daqiiq inuu noqdo ayaa loo baahan waxyaabaha dhan aad ku dartid basasha barbarooniga wax inuu ku soo hirmal rabo si budo ayaad ka dhigaysaa kadibna waxaan sameeyay makiinada kale ayaan soo qaaday timirkii aan qasay biyaha kuleel aan ku qasay ayaan ku shubay kadibna raqaygii aan qasay ayaan ku dhex darayaa marka timirka ayaan ku shubay kadibna raqaygii aan soo qasay ayaan sidaas u miirayaa kadibna raqayga waxaan ku darayaa timirka dhexdeeda and then insha Allah waa arki doontiin sida kale aan u sameynayo soo asxaabteeda qaaliga marka raqayga waan soo miiro waa aragteen timirka dhexdeeda ayaan ku daray kadibna waxaan sameynayaa waan soo shiidayaa daqiiq ayaan ka dhigaa timirkaasi raqayga marka waan soo shiiday markaan soo shiiday kadibna idin tusinayaa soo asxaabta aragteen hadda waan soo shiiday makiinadaas ayaan ku soo shiiday
daqiiq ayaan ka dhigay timirka iyo raqeygii aan isku daray. Marka timirkeeni raqeyga diyaar waaye. Marka waxaan sameynaynaa jikada stoofka ayaan aadaynaa sida kale aan u sameynaa maanta basbaaskan oo maraqaan raqeyga idin tusinaya marka sidaas la socda. Soo taawada ayaan dabka saaray asxaabta kadibna saliid ayaan ku shubayaa. Saliida aan isticmaalaa waa midka saytuunka laakiin ay saliida haysatiin adinka oo ku karsan kartiin. Saxankan waxaa igu jira caleenta bay leaf carfiso waaye heel iyo qalfo ayaan ku shubay. Kadibna saxankan waxaa igu jira dhagayaro waaye marka intaas markaan isku daro waxay saliidaaseti ayaan ku dhex shiilayaa kadibna waxaan sameynayaa yaanyadii aan soo shiiday ayaan ku dhex darayaa. Marka asxaabta caleenta bay leaf-ka caleen carfiso waaye hadaa helaysid okay waa hadaa helaynin qasab maaha waa iska dhaafi kartaa caleenta bay leaf. Inta heli karaan oo ku darsanaysiin caleenta saaid ayuu carfinayaa cuntada inta heli karinne laazim ma aha sidaan caadi ayaa ku karsan kartaa. Soo aragteen yaanyadii aan soo shiiday ayaan ku dhex shubay kadibna si fiican aan isku qasayaa. And then inshallah waa idin tusi doonaa sida kale aan u sameynaa basbaaskan aad u macaan badan oo raqeyga iyo yaanyada laga sameeyo. Soo asxaabta aragteen diyaar waa yaanyada marka waxaan sameynayaa waan sii dhaafaa waxay inuu karkaro because yaanyada biyo zaaid waaye. Soo waxaa loo baahan yahay si fiican inaad u karisid yaanyada inuu bislaado. Marka hadda sidaas markuu u karkaro dabool ayaan saarayaa waan sii karinayaa dab qiyaas ayaan ku karinayaa. Soo marka waxaan sameynayaa yaanyadaas waa sii karinayaa ilaa yaanyada si fiican u gursado. Markuu yaanya qiyaas noqdo kadibna waa idin tusinayaa waxyaabaha kale aan ku dari doono. Soo asxaabteeda qaaliga marka waa soo laabtay waa aragteen yaanyadeen siduu u gursaday sidaas ayaa la rabaa qiyaaskaas markaa noqdo aragtid oo sidaas u gursaday. Kadibna waxay sameynaysaa waxay sii gedgedinaysaa markaa gedgedisis kadibna waxay ku darsanaysaa yaanyo shiishid ayaa ku daraysaa 2 qaado ilaa 3 qaado yaanyo shiishid ayaa ku darsan kartaa. Marka yaanyo shiishidka u badisin zaaid gaduud ayuu u noqonayaa. Soo marka sidaas la socda si fiican aan u gedgedinayaa yaanyo shiishidka markaan ku daray. Kadibna hadhow waxay arkaysiin yaanyo zaaid gaduud u noqday soo yaanyo shiishid la'aantiis ma la sameyn karo. Soo hadda waxaan ku darsanayaa cusbo ayaan ku daraa cusbana qiyaasina ku darsada daarabtiin maraq digaag ayaa ku darsan kartiin daarabtiin cusbo waxay adinka jeceshiin ayaa ku darsan kartiin. Kadibna waxaan ku daraa basbaas gaduud waa aragteen midka borbarka ayaan ku darsaday qiyaastii adinka rabtiin ku darsada. And then waxaan ku darsaday nus qaado qiyaasiis oo garam masaalahan guriga ayaan ka sameeyay waxa waajiyaal isku dardaray. Marka waxyaabahaas marka aan ku dardaray waxaan sameynayaa marka daboolkiisa ayaan ku xilinayaa dab hoose ayaan ku karinayaa si fiican inuu u karo waa saliidii aan ku shubin inuu kor u soo baxayaa loo baahan yahay marka dab hoose ayaan ku karinayaa kadibna waa idin tusinayaa. Soo asxaabteeda qaaliga waa aragteen dab hoose ayaan ku karinayaa kadibna waxaan ku darsanayaa timirkii iyo raqeygii aan isku dhex daray aan soo shiiday ayaan ku dhex darayaa. Soo asxaabta timirkii raqeyga inaan ku dartid shidniga aad sameysanaysid yaanyada qasab waaye because labada shay oo zaaid u macaynayso timirka iyo raqeyga marka lagu daro iyo basbaaska marka ku dartidna zaaid ayuu u macaanayaa. Marka sidaas ayaa la rabaa shidniga inaad sidaas u karisid. Soo hadda waa aragteen marka si fiican aan isku qasay kadibna daboolka ayaan ku xilinayaa dab hoose ayaan ku karinayaa ilaa 3 daqiiqo. Soo asxaabteeda qaaliga 3 daqiiqo ayaa laga joogaa waa aragteen shidniga raqeyga siduu u soo karkaraayo sidaas ayaa la rabaa saliida markuu sidaas u soo korbaxo sidaas ayaad ku ogaanaysaa inuu bislaado maraqaaga. Soo hadda waa aragteen saliida siduu noqday sidaas ayaa loo baahan yahay adinkan markaa sameysanaysiin iska hubiya waxyaabaha ku daraysiin iyo nidaamkiisi. Marka asxaabteeda qaaliga waa ka shidniga raqeyga sidaas ayaan u sameeyay. I hope dhamaantiin inaan ka faa'iiday recipe-gan codsigeena. I hope adinkan inaan barowey doontiin sidaan u sameeyay. Soo asxaabteeda qaaliga marka diyaar waaye shidniga raqeyga waa aragteen shidniga raqeyga waxay adinka jeceshiin ku cuni kartiin bariis hadaa karsatiin waxay adinka jeceshiin aad ku cuni kartaa waa shidni raqey aad iyo aad u macaan badan oo basbaas dhanaan macaan isku jira marka sidaas sameeyay adinkan inshallah. Soo hadda baaquligaas ayaan ku shubanayaa kuli marka baaquliyaashan aan ku shubayo guriga ahaan ma aha asxaabteedii jiiraankeygii ayaa loo geenayaa hal xabo.
marka inta kalena waxaan sameynaya caag ama dhalo ayaan ku shubaya talaajada ayaan gelinaya mar walba markaa rabtid inaad cuntid ee soo baxsanaysaa soo asxaabteeda qaaliga waa aragtan shidniga raqayga sidaas ayaan u kariyay bariiska aan ku cunay waxyaabaha kale aan bariiska aan ku cunay iga dalbateen oo idin soo gelinaya marka waxaan rajaynaa videogan ka faa'iido soo asxaabtada videogan ka hesheen sidaan u sameeyay maanta ayadaan oo basbaaska aad u macaan badan marka videogan like saar si share garee si walaalaha asxaabtaada orkaanay ka faa'iidaan asxaabta maanta igu cusubna kusoo dhawaada familka subscribe ka dhinaciisana gambaleel yariis ayuu ku yaalaa gambaleelkaas furta mar walba video aan soo galisay dhaqsaynay soo gaaraan soo asxaabta waa ka yaayada bariiska waqti walba aan ku cuno waay marka waxaan rajaynaa videogan codsigiina waa dhamaantiina ka faa'iideen soo asxaabteeda qaaliga videogeena oo maanta yaayada intaas ayuu ka yahay until then insha Allah next video aan ismaqli doonaa with new recipe dhamaantiina qeyr badan ee ani dhaaf dunida meel walba ka joogtaan and as always ducadiigu xasuusta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh